waxaan u mahadnaqayaa bahda soo qaban qaabisay barnaamijkan oo Somali Innovation Hub iyo tiimamka ka soo shaqeeyay oo dhan iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha intaba barnaamijka digitalka ama teknolojiyada ma aha wax hadda inagu cusub ama aanu isbarayno guud ahaan saameynteeda ama inta ay gaarsiisan tahay ama reachka uu leeyahay marka barnaamijka aniga la sheegay ama la yiri bal wax ka dhex oo si guud digitalka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay ama dhinaca positive-ka iyo dhinaca negative-ka labadaba marka taasaan isku dayay insha Allah bal inaan wuxuu yar ka iraahdo oo maanta aan qodobo yar ka tusaaleeyo ama ka sheego digital horta waxa la yiraahdaa dhammaan wax kasta oo internetka iyo ku taxalluqa si guud mobilka haystid digital ku jira camera digitalka kamid tahay taaladaas ama towerka noo keenaya internetka ama mobilka ama waa digital ku jira applicationada systemska computer waxaan oo dhan rangareynaya ama wada serverska la yiraahdo powerfulka oo adiga ku soo gaarsiinaya waxaan hadda inta badan aan sheegi doono insha Allah ama wada garanaysaan Facebook haduu yahay hadii aad Google isticmaalaysid iyo YouTube isticmaalaysid kulli waxay ku jiraan ama ay ka mid yihiin saaxadda digitalka si gaar ah hadii aan u eego dhinaca social media-da ama waxyaalaha ay hadda nagu hayso iyada hadda aad u ah wax maartay runtii u baahan in xoogaa laga yiraahdo social media guud ahaan ama asal ahaan markaad eegto bilowgeedii markay bilaabatay Facebook oo kale ka soo qaatay 2004kii meelaha la asaasay 2005 soo caan baxay hatta bilowgii hore the facebook.com buu ahaa oo ereyga deeba ku jiray because qolaa haysatay already facebook.com qoratay oo diiwaan gashatay oo haysatay oo marka iyagu I don't know waxay maartay laakiin way ka markii dambe ka soo iibsadeen $200,000 baa laga siiyay magaca kaliya domainka Facebook baa bixiyay si uu helo just da'da meesha uga saaro facebook.com marka waxyaalaha teknolojiyadan ama lagu dhisay asal ahaan runtii markaad eegto ma aha wax inaga dhaqankeena ama nala ka tala galiyay ma niman dhalinyarada baa sameeyay oo Mark Zuckerberg oo kale 19 years 19 sano jiray markuu sameeyay jaamacadda uu dhiganay second year wuxuu dhiganay I think psychology waxaas uu dhiganay programming iyo coding iyo waxa teknolojiyada asagoo yar buu bartay 12 jir meelahaas kadibna wuxuu u sameeyay markii hore si uu maartay waxyaalo iska falaad oo ama dhalinyaro ama iska baashaala oo kale in sawirada iyo waxa iyo la isku maartay dhalinyarada ku wada xiriiraan kadibna de waxaan hadda arkayna ayuu noqday iyo kuwa kale oo la midka ah oo tirada badan oo TikTok ugu dambeeyay kulli asal ahaan waxay ku saleysan yihiin ama dhaqan ahaan ay ka soo jeedaan dad anaga shaqo aan ku lahayn oo asaas bilowgiina waxay ahayd ama mootada ay ku shaqeynayeen waxay ahayd connecting the world connecting the people families waxaas caalamka in la isku xiro dadka la soo dhaweeyo kadibna waxay noqotay wax hadda aan arkayno oo qof walba uu wuxuu rabo ku sheegayo ama wuxuu rabo uu ku sameeyo algorithmska ama systemska lagu dhisay waxa loo dhisay in mar walba lagu helo dad badan hadda waxaan arkay shalay beehad meelahaas Facebook oo ka cabanaya in xoogaa userkii monthly userski ay xoogaa dib u dhaceen 1.9 billion meelahaas dad baa isticmaalay miya bishii hadda ugu dambeysay Janaayo oo ka hooseysa bishii hore xoogaa iyaga marka numberskaas iyaga wuxuu ah go'aalkaas ay lacagta ka helaan saddexdii bilood baa waxa la soo dejiyaa si ay la socotaan caalamka kambaniyadana lacagta ay sameeyaan ama inta ay dakhli soo galay $20 billion oo kale 3 months meelahaas ay sameeyeen maamulada iska badnay ila 10 billion meelahaas waa faa'iido u noqonaysa laakiin iyagu mar walba waxay ku xisaabtaan bishii saddexdii bilood ka horeysay inay ka sii kormaraan marka mar walba waxa ay target galinayaan waxa weeye in applicationskooda ama systemskooda lagu jiro oo la isticmaalayo aflaan saac oo adiga saacada yar ee adigu ka nasanaysa asaga waxay u tahay dhimasho amal bay ka xigtaa aduu number baa u tahay just a simple 0 and 1 kaas aad ugu jirtaa inaad mashquul tahay bayna rabaan oo waxay leeyihiin teams gaar oo ka shaqeeya si psychology-ga binaadamku u shaqeeyo si markaas ay dadku mar walba u joogaan oo u dul joogaan caadi ahaan qolyaha ama dadka khubarada oo si fiican waxaan u eegay waxay dhaheen 30 daqiiqo kaaga filan maalintii oo dhanba gabigooda baraha bulshada inaga Soomaaliland marka eegto 30 daqiiqo hadda macquul ma aha aflaan saac oo noo furan yahay har iyo habeen qofka doo fadhiyo haduu soconayo haduu
shaacabayo haduu maartay waa ku jirnaa barahii bulshadan u dhaxyaacayna waxyaalaha hadda aanu arkayno oo foolxumadana waa loo jeedaa marka waxyaalaha kale oo ay khibradu ay sheegeen waxa weeye inay leedahay qabatin inadan sida maartay sagaarka iyo balwadaha kale doominka maskaxda bini aadanka ay samayso qofka mar walba siinay arjigaas inuu waxaan uusan ka tagin ama uusan ka faaruqin ayuu leeyahay oo sida balwadaha kale khamrada iyo wixii la mid qaadka iyo sagaarkii loo qabatima addiction buu leeyahay addiction kaasuna waxa keenaya waxa weeye qofkan marka aadan awareness hore ama ogaal ama wuxuun oo ka celinaya hada wadamada reer galbeedka markaad eegto iyagu bilyanada dollar baa soo galaya canshuur badan bay ka helayaan shaqaale badan baa ka shaqeynaya technology weeye power bay u tahay iyaga awood bay u tahay ay waxay rabaan ku burburin karaan inkastoo mararka qaar kood iyaga gidbi loogu gadiyay oo doorashadii haddaad eegtaan 2016 Mareykan ka dhacday Facebook election baa la yiraahdaa oo ruushka ayaa wuxuu adeegsaday bay dhaheen inuu ku kharibo siyaasadii Mareykanka markaas xooga aad u baraarugeen oo shuruuc badan iyo waxyaalo badan iyo ogaal badan iyo dad raacdaan cadaadis badan baa saaran hadda baraha bulshada iyo khaasada Facebook iyo inay bedelaan tacticooda iyo waxooda oo dhinaca dhalinyarada hadii applicationada ay isticmaalaan dhalinyarada oo iyo sida Instagram-ka oo kale Messenger-ka oo kale wixii la mid ah gameska waxa soo dhan waxa weeye waxa soo baxday ama ay arkeen wadamadii awal waxaan promote gareynayay ama ay power-ka u ahayd inay dhibaato ku keentay iyaga dhexdooda oo marin habaabin iyo been abuur iyo loo isticmaalay Facebook-na la adeegsaday because isagu lacag u buu rabaa waxa rabtaa hadda inta page samaysid oo ku sheegtid baad waxaad bixinaysaa khidmadaas promotion-ka bixinaysaa خلاص waa lagu promote gareynay meesha rabtaana target gareynaysaa systemku suu dhisan yahay ama qaabka loo habeeyay waxa weeye in garoowe xaafad kamid hadii la rabo lagu faafin karo wixii la doono si toos ah target caadi ah qof walba oo lagu bushkareeyo inuu arko marka technology-yadan dhinacaas negative-ka ah way badan yihiin qabatinkaas oo kala kamid ah waxa kamid ah qofku inuu ismoodsiis kalo oo sawiradan badan ama waxaan qofku eegayo mar walba ama waxaan noloshan kale oo sidaan garanayno qof walba wuxuu jecel yahay marka uu isa soo bandhigayo sida ugu fiican uu soo bandhigo oo arkaysa qofkii asagoo faraxsan buu soo dhigaya ama meel qurux badan jooga marka mana dhici karto qofku inuu mar walba saas xaaladda ku jiro waxa tayiga dhexdoodii bay keentay kaliftay inay dhexdoodii ama society-goodan ka hadlaya reer galbeedka inay saameyn ku yeelato kuwan celebrities-ka iyo qaabka u dhaqmayaan ama waxyaalaha live-ka inay dad kale oo dadka buurka iyo isku day inay saas kala raadiyaan kadibna ay keento inay maartay qofku uu noloshiisa banaco istilo oo dhibaato ay soo gaarto dhinaca marhabaabiska iyo been abuurka waaba aragnaa taas oo waxyaalaha technology-yada markii hore ama asalka ahayd ee la yiri inay soo dhaweyso dadka ayaa hadda waxa la xaqiijiyay inay kala fogeynayso وقف والبا وإيكو تشامبر واحد اللي هذا وماشي أسقو اللي هيستي وحي بو جعليه وسياسة إن هدات فيرسو أما وحنا وحي هذيك أوريدي كوجري وحي تاجيري بعد أبروف جرانيسا يد بعد مسج كي كومنتس كبحنيسا يد بعد لايك جرانيسا يد بعد باركينيسا قلا كلا في بونتي كلا وضعته وديديسا إسلا مركب النيجاتيف وحوي وعينيسا وتكتوريسا مركا خطر بدن أو أنا سوكو بكرين أي لا ذهي dhinaca positive kaana hadii waa inta yar inagu hadda aan ka isticmaal hadan Soomaaliyeed sababta keenaysana waxa weeye infrastructure ahaan baynaan u habaysneen xagii education-ka oo waxbarashadii xagii maamulkii iyo dawladii xagii infrastructure-ka dhinaca internet-ka iyo ogaalkii iyo aqoontii midna maaragtay dadkeen aad bay ugu yartahay hadda dad weydiiso dadka badankood farqa u dhaxeeya internet-ka iyo Facebook in yar baa laga yaabaa inay kala saarto oo Facebook wuxuu yahay si gaar ah u qeexdo internet-kana wuxuu yahay si gaar ah u qeexdo ama kala fahantaba kamana liidana wadamada aad nooga horumarsan oo developing countries-ka lagu qiyaaso ama sida Indonesia iyo Nigeria oo kale research ugu dambeeyay ama aan arkay waxay ahayd 30% dadku ma kala saareenba Facebook iyo internet-ka marka inagu xagee joognaa marka Soomaaliya hadaan nahay waxa weeye waa ka sii hooseynaa maadaama burburkii iyo wixii iyo
dhinacii fiicnaa ee teknolojiyada barashadeedii waxaas oo dhan aynu ka gaabinay ama ay noqotay maba jirtaba hadda Puntland ahaan markaan fiirino iskuulaadkeena intee iskuul baa computer labs leh hoose dhexe sare oo kale ma jiro anu kale intaan arkay ma leh 2022 waa lagu jira digital iyo technology iyo positive keeda wixii baan rabnaa inaan ka hadalo asaaskii iyo basekiina maba jiraba marka waxa iska noqonaysaa just waxa la yiraahdo iska babalkaas baan iskaga jiraynaa iyo in maartay ay marka waxyaalaha asal ahaan waxa weeye in hoos waxaan laga soo dhiso weeye sida hadda injineerada iyo dhakhaatiirta aan haysano iyo waxa soo dhan xagee ka yimaadeen markoodii hore waxay ka yimaadeen mathematics-kii iyo luqadii iyo maadooyinkii iskuulka from hoos looga soo bilaabayay ayay ku fiicnaadeen kadib marka engineering doortay ama dhakhtar doortay ama waana ogtiina caalamka jaamacada caadiga oo qofka dhakhtarka la siinayo ama engineerka la siinayo waxa la eegaa mathematics-ka intuu ka keenay hadduu ka keenay wixii ka sareeyo ama macnaha wax ka sareeyo ma jiraan plus yadisanayn baa la qaadanaya iyo maadooyinka science-ka marka technology-yadu hadda STEM subjects-ka science, technology, engineering and math tiidu waa technology marka waxa loogu talagalay from year 1 in laga bilaabo dalka Ingiriiska oo kale hadda ka hor waxay scrap gareeyeen ama daaqada ka tuureen dhammaan ICT hore oo la baranayay 2010 bay bedeleen waxay u bedeleen in from year 1 kaba ilmaha la baro algorithms-ka iyo coding-ka iyo robotics-ka iyo sida loo maaratay applications-ka loo baahan yahay loo sameeyo marka waxa weeye si teknolojiyadaas dhinaceeda fiican loo helo waa in dhinaca waxbarashada campaign loo galaa horta iskuulaadkan 100 computer konton computer wuxuu in loo helo iskuul walba oo basic-gaas bal loo bilaabo wacyigelin badan la sameeyo sida tan oo kale oo dadka loo sheego in waxaanu for example hadda sheekooyin hadda socday waxaan gabar gurigeeda ku jirta la yiri TikTok wax dhigtay ninkeeda ba arkay uu furay something like that iyaduna ay leedahay inuu xageen aaday sababtoo ah technology-da la kalisatay aysan war ka hayn ayuun baa ka liftay inaysan fahmin waxaan ay sameynayso inay milyan dad gaarayaan hadda waxa socday wiil sheegay inuu ku xadgudbay diinta iyo suuqyada dad badan baa intaas feerayo oo waxyaalo khalkhalad isku dhahay laakiin waa laba qof dhexdooda ama qof maqlay isla markii qofku istaaqfurullah waa dambaabay horu ka soconay laakiin kan hadda oo leeyahay meel walba la cayrsanay waxa leeyahay la tilwaanlay asaga marka hadii la weydiin lahaa waxa laga yaabaa inuu dhihi lahaa anu waa xoogaa iska caroodayo maartay anu muslim baan ahay waa ka la ilaaha illa muhammad rasuulullah marka fahankaas disconnectiga oo qofka uu la kowsaday digitalkaas mobilka iyo internet baa isku keen xigay inaga meel dhexe ma soo marin gaab ma jiro oo xagga aqoonta ama barashada marka dhinaca positive-ka uu badan yahay mana u badnin runtii anu hadda teknolojiyadan business teknolojiyadan ku jira mudana ku soo jiray shirkadaha waxa arkaysa badan oo hadda dad raadisid inta website leh website caadi oo information-kooda laga helo just basic website Puntland da eegto waa yaryihiin ma jiraan anaga ka shaqeynaa wasaaradda waxa dhisnaa iyo software-da iyo kuwa shirkadiyo inta soo branch leh waxa leedahay website yaro just information-kaaga kaliya adiga halkaas la iska raadiyaa hadda Google waa la geliyaa Puntland wax laga rabo caafimaad hadii education yahay haduu general trade iyo construction lawyers-kii baan website lahayn mana fahmayo oo wuxuu ku leeyahay maxaan uga baahanayaa yaa galay uu ku leeyahay xafiiska ayaa adiga kugu imanay xafiiska qofku kugu imanaya ayaa soo dabaysaa oo aad keenaysaa inuu maartay asagoo meel fog jooga uu ka samaysto adeegga ka dalbado just information-kaaga kaliya inuu helo moogtay baa keenaysa in aad halka jooga lagu soo helo marka dhinacii fiicnaa ma bahaynaba guud ahaan iyaduna de kulli 10 badan iyo marar kale in laga hadlay noqonaysa waa mahadsantihiin